gudoomiyaha aqalka sare ee xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo maanta doonayay inuu ka dhoofo garoonka diyaaradaha Aadan Cadde waxa ay suurtagal ku sameeyay ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee gacanta ku haya amniga garoonka diyaaradaha halkaasoo in muddo uu ku xayirnaa gudoomiyaha aqalka sare. haddaba si looga falceliyo arinta maanta ay ku kaceen ciidamada Amisom waxaa shir jiraa'id xarunta golaha aqalka sare ku qabtay Mawlid Xuseen Guhaad oo ah gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha aqalka sare ahna kusimaha gudoomiyaha waxaana uu soo hadal qaaday inaan marnaba laga yeeli doonin guud ahaanba falka falxumada ah ee uu ku tilmaamay in ciidamada Amisom ay kula kaceen gudoomiyaha aqalka sare. askartii meesha joogtay waxay diiday gabi ahaanba ayagoo aqoon u leh isu sheegnay inaan nahay mas'uuliyiintii golaha aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya aan u soconno airportka inaan galno gabi ahaanba waa ay diideen. taasi waxay keentay inaan taagnayn muddo 50 daqiiqo ah. Amisom waxay ku joogtaa ogolaansho dawladda federaalka ee Soomaaliya shaqada ay u idman tahayna ma ahan midda maanta ay ku kaceen waa xadgudub waa ka xunnahay mana aha wax loo dulqaadan karo oo uu aqbali karo guddoonka xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya gaar ahaan golaha aqalka sare. arrinkaasi waxaan ka dalbanaynaa oo si adag uga dalbanaynaa inay jawaab cad ka bixiyaan. sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawad ayaa dhankiisa shir jiraa'id ku qabtay xarunta Villa Hargeysa waxaana uu ku sheegay inaan la aqbali doonin habdhaqanka xun ee ay la soo baxeen ciidamada Amisom isagoo sheegay in ay baalmareen dhowrista xuquuqda madaxda xasaanada leh. waxaan cadeynaynaa jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inay tahay qaran madax bannaan oo leh waxa weeye jiritaankiisa iyo haybadiisa. dalkan cid nooga sarreysa oo la xisaabtankeeda iska leh ma jirto ama ha ahaadaan Soomaali ama ha ahaadaan ajnabi. waxa weeye xalane iyo airportka iyo area-daasi waxay ka tirsan tahay jamhuuriyadda madaxa bannaan ee Soomaaliyeed. ajnabina ma leh. Amisomna waxa weeye mas'uuliyad gaar ah oo ka saaran ma jirto kamana xigsan karaan ciidanka qaranka ama mas'uuliyiinta qaranka intaba. waxaan cadeynaynaa Amisom iyo mas'uuliyiintooda midowga Afrika ahba inay u hoggaansamaan sharciga dastuurka iyo xasaanada dalkani leeyahay. haddii kale waxaa ka iman karaya cawaaqib xumo wada shaqayn la'aantaas. hayeeshee madaxda qaranka waxay xasaanad buuxda ay ku leeyihiin dhulka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sida uu qeexayo dastuurka dalka iyadoo talaabadan ay noqonayso mid aan ku wanaagsaneen in lagula dhaqmo mas'uul ka mid ah hay'adaha ugu sareeya jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. Umar Maxamed Somane, Universal TV, Muqdisho.